Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa macluumaad ku saabsan fardaha ama gammaanka. Magacaygu waa Cabdiweli Cabdi. Halkanina waa Dhefre Media. Gammaan. Magaca gammaan waa magaca guud ee loo yaqaano saddexda qoob giraangir: fardaha, baqlaha iyo dameeraha. Fardaha kooda labka ah waxaa loo yaqaanaa faras, inkastoo deegaanada qaybtooda looga yaqaano sange. Faraska dhadigna waxaa loogu yeeraa geenyo. ubadka iska dhalaan waxaa loo yaqaanaa darmaan. Faraska ama dhasha faraska ee aan weli baran daaqa waxaa loo yaqaanaa bogcad. Faraska la dhufaanay ama xiniyaha laga saarayna waxaa loo yaqaanaa sange. Faraska dheereeya xawaarihiisu dheereeyana waxaa loo yaqaanaa baxdow. Faraska xawaarihiisu gaaban yahayna waxaa loo yaqaanaa magaan. Codka faraska uu sameeyana waxaa loo yaqaanaa danan ama danaani. Marka faraska uu 100 gaarana waxaa loo yaqaanaa wegan. Marka faraska la jarabarayo ama la tababarayna waxaa loo yaqaanaa laylin ama layli. Farduhu waxay leeyihiin midabo, inkastoo midabadooda lagu soo koobo 7 midab, waxaana ka mid ah midabadaas ashkir, xamar, bulaale, qaaje, caynab, bood iyo baroor. Soomaaliduna faraska baroorka aad ayay u jeceshahay. Mahmaahayaha fardaha loo adeegsado aad ayay u fara badan yihiin, waxaana ka mid ah faras ama ku joog ama ka joog. Fardo la isugu joogo la isuguma faano. Faras deeq lagu siiyay ilkihiisa lama fiirsho. Socodka fardaha ama orodka fardaha aad bay ayagana u badan yihiin. Magacyadoodu waxaa ka mid ah gurdan raac, wankalaali, raqle, xawaare, xawli, hardaf, jeefag, kadle iyo kuwo kale aad u fara badan. Fardihii caanka ah ee ku noolaa dhulka Soomaalida waxaa ka mid ah fardahaas xiinfiniin iyo doodimeer oo uu lahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Faraskii loo yaqaanay tuke oo uu lahaa Abshir Dhoore, welhad oo uu lahaa Raage Ugaas, tuure oo uu lahaa Ismaaciil Mire iyo weyrax oo uu lahaa Wiilwaal. ayaguna way jiraan kuwo kale oo caan ahaa. Haddii aynu eegno xagga suugaanta oo Soomaalidu aad u ammaani jirtay fardaha, waxaa ka mid ahaa gabayga kan soo socda: xamar guudka sare iyo murqaha xad ku wada yeeshay, oo xero nugaal iyo sanaag lagu xanaaneeyay, ashkir xub dhacsaday oo bannaan xaysku da'ay jooga, qaaji xoorka cadoo timaha xuusho midabkeed leh, bulaal lagu xarbiyay 2 dagaal oo xargagay guudku. Waxa ayana jira salab ama qalab loo adeegsado fardaha, waxaana ka mid ah koore, qotino, rikaab, dawan, keeno, tuumiye, dhabanno iyo sitaac. Waxaanu muuqaalkan ku soo xiraynaa gabaygiisa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee ahaa xiinfiniin uu u tiriyay markii uu bixinayay siinayna sodogiisa. wuxuuna ahaa gabaygan sidan ayuu u dhacayaa: aduu galabta ku xoolayahay xamarkii dheeraaye, waa xiinfiniin neefka aad xariga haysaaye, xayawaanka oo idin naftay kala xaroodaane, mar hadduu suldaan igu xilihi igaga haydantay, xarigiisa qabo aadmi kale kuma xurmeeyeen. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeeni maanta. fadlan haddaad ku cusub tahay YouTube channelka subscribe saar, like saar, una share gare asxaabtaada.